Azerbaijan iyo Armenia waa laba dal oo daris ah muddo waxa u dhaxeeyay colaad guun ah oo diin dhul iyo taariikhba leh. labada dal waxaa dagaallo culus ay dhex mareen horaantii sagaashamaadkii markii labada dalba ay ka go'een Sofiyeetkii burburay. dagaalkooda ayaa ku bilowday lahaanshaha buuraleyda Nagorno-Karabakh oo ah dhul ay leedahay Azerbaijan, laakiinse ay sagaashameeyadii xoog ku qabsatay Armenia. dagaalkii labada dal u dhaxeeyay waxa uu soo afjarmay sanadkii 2020 kadib markii Azerbaijan oo taageero ka helaysa Turkiga ay ku adkaatay dagaalkii muddada soo socday, ayna Azerbaijan dib u qabsatay oo xoreysatay dhulkii laga haystay muddo ka badan 27 sano. Azerbaijan ayaa ugu dambeyn sanadkii 2020 guul weyn ka gaartay dagaalka, waxayna Armenia ku khasbanaatay inay ka baxdo dhulkii Azerbaijan. hadda sanad kadib dowladda Azerbaijan ayaa abaalmarin iyo maamuus u sameynaysa dadkii ay u aqoonsatay inay yihiin halyeeyadii iyo geesiyaashii qaybta weyn ka qaatay guushii dagaalka ee xoreynta dhulkii laga haystay. dadka halyeeyada iyo geesiyaashii dagaalka loo aqoonsaday ayaa tiradoodu gaaraysa 78 qof oo isugu jira ciidan iyo rayd. waxaase geesiyaashaas ugu saameyn badan qisada gabar la yidhaahdo Zalela Hazanova. gabadhaas ayaa markii hore u shaqaynaysay wasaaradda macdanta iyo shidaalka ee dalkaasi Azerbaijan, laakiin markii dambe shaqadaas ayay ka tagtay waxayna dooratay inay ciidanka Azerbaijan ku biirto. waxay qaadatay tababar kooban, kadibna waxay dagaalkii xoreynta Karabakh ka dhigtay wacdaro la yaab leh. waxayna dagaalkaas ku weyday qoyskeedii oo dhan, ninkeedii iyo walaalaheed. Zalela Hazanova keligeed ayaa hadda ka soo hartay qoyskeedii, sida uu sheegay madaxweynaha Azerbaijan. madaxweynaha Azerbaijan Ilham Aliyev ayaa ka sheekaynaya qisadeeda, wuxuuna sheegay in loo aqoonsaday Zalela Hazanov kaalinta koowaad ee geesiyaasha. madaxweyne Aliyev oo arrinteeda ka hadlaya waxa uu yidhi sidan: marka ay ummad guulaysato waxa waajib ku ah inay xusto oo maamuusto dadkii guushaas u soo hooyay. guushii dagaalkii Karabakh kadib waxaan samaynay guddi gaar ah kuwaas oo qiimeyn ku soo sameeyey halyeeyadii geesiyaashii ugu mudnaa, kuwaasoo wacdaro iyo nafhurnimo u sameeyey dalkooda xilligii dagaalka Karabakh. kaalinta koowaad ee biladgeesiga qaranka waxaa ku guulaystay Zalela Hazanova. waxay samaysay wax ka weyn nafhurnimo iyo geesinimo qof la iman karo qiyaas ahaan. waxaa isku raacay halyeeynimadeeda iyo geesinimadeeda dhammaan saraakiisha, ciidamada iyo qof kasta oo xaalkeeda la socday xilligii dagaalka. waxaa jira arrimo gaar ah oo gabadhan halyeeyada ah laga diiwaan geliyey. qodobada la ii sheegay waxaa ka mid ah oo qaarkood aan wax ka ogaa. waa aqoon-yahanad baratay cilmiga shidaalka, waxay haysataa shahaadada labaad. waxay madax ka ahayd markii hore wasaaradda shidaalka, kadib shaqadaas way iska casishay. waxayna dooratay inay ciidamada ku biirto, ayna dhulkeeda xoreyso oo ay difaacdo. iyadoo weliba ahayd hooyo cunug yar nuujinaysa ayay go'aansatay inay ka tagto cunugeedii ay jeclayd ayna gasho dagaalka. taas waa arrin adag, way yar tahay qof samayn kara. waxay ka dagaalantay 4 aag oo dhulka la xoreeyay ah, waxaana aaggaas ka mid ah aagga dagaalka ee Bizota. halkaas sidaan la wada soconno waxa ka dhacay dagaal lagu hoobtay. waxaa dhacday in halyeeyadeena Zalela Hazanova ciidan ay ka mid ahayd ay keligeed ka soo hartay kadib markii intii kale ay shahiideen. halkaas ayay dhufays adag ka samaysatay, isma ay dhiibin, way sii dagaalantay. cadowgana way u diiday inay tallaabo horay u soo qaadaan iyadoo keligeed ah. goobtaas ayay go'doon ku sii ahayd muddo 16 saacadood ah ilaa iyo intii ay ka soo gaarayeen gurmadkii degdega ahaa. dadka badankood way rumaysan waayeen in hal gabar oo keliya ay sidaas u mintiday. sidaas darteed isla maalmahaasba Zalela Hazanova
ayaa loogu magacdaray fariisinkaas ciidan ee ay keligeed u mintiday. waxay qaadatay kaalin ka baxsan dhinaca ciidamada oo waxa ay dad badan ku wacyigelisay inay ku biiraan ciidamada oo ay dalka difaacaan. boqolaal qof ayaa iyada darteed ciidamada ugu soo biiray. dadkaas waxa ugu badnaa ehelkeedii ay jeclayd. dagaalkaas waxay ku weyday oo kaga dhintay ninkeedii, 4 walaalaheeda iyo ilaa 10 qof oo kale oo qoyskeeda ka mid ah. Saleela Hasanova maanta qoyskeedii waxa ka soo haray keligeed iyo cunugeeda yar, laakiinse waxa garabkeeda taagan Allah iyo dhammaan dadka Azerbaijan oo dhan. dowladda Azerbaijan ma hayso wax ay ku abaalmariso oo u dhigma nafurnimada iyo geesinimada Saleela Hasanova, laakiin dowladdu waxay go'aamisay in lagu abaalmariyo darajada ugu sarreysa ee ciidanka iyo bilad sharafka geesiga qarniga ee Azerbaijan. maanta oo kale sanad kasta waxa la go'aamiyey in la xuso geesinimadeeda. waxay noqon doontaa maalintani maalin gaar u ah Saleela Hasanova, waxaana xuskeeda maalintaas u gaarka ah uu socon doonaa inta ay nooshahay iyo geerideeda kadib. waxaa kaloo la go'aamiyey maalintaasi waxay noqon doontaa maalin fasax ah waddanka oo dhan oo keligeed laga sheekeeyo. dabcan taasi waxay khasbaysaa in dastuurka wax laga bedelo iyada darteed oo maalmaha ciidda ah lagu daro. sanadka dambe waxaa la soo saari doonaa filim laga metelay qisada geesinimo iyo nafhurnimo ee Saleela Hasanova. dhammaan kharashka ku baxaya filimkaas waxaa maalgelinaya dowladda Azerbaijan. waan ku faraxsanahay in qof dumar ahi ay guul intaas la eg dalkeena ku hogaamiso, ayna gaarto darajada intaas la eg oo uu maamuuskeeda iyo qiimaheeda uu ogaan doono qof kasta oo Azerbaijan u dhashay iyo dhammaan walaalaha garabkeena taagnaa xilliyadii adkaa. waxaan oran karayaa marka aan aragnay qisada Saleela Hasanova, gabar qadiyad saxa ku dagaalamaysa waxay ka xoog badan tahay wax kasta. kaasina waxa uu ahaa madaxweynaha Azerbaijan Ilham Aliyev oo ka sheekeynayay qisada Saleela Hasanova oo loo aqoonsaday geesiyada koowaad ee Azerbaijan xilligii dagaalka Karabakh. haddaba adigu ma garanaysaa haliyey Soomaaliyeed oo naftiisa u huray difaacidda Soomaaliya? xus mid ama laba ka mid ah. waa Cabdirasaaq Jubba oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo.